dani ballaaran ee xuska 20ka Ginbood oo markii 26aad guud ahaan dalkeena Itoobiya laga xusay waxa si heersar looga xusay xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga munaasabadan 26aadna ay ku soo beegantay xilli deegaanku uu ku talaabsaday guulo horumarineed nabadgelyo maamul sooban iyo waliba horumarinta kaabayaasha dhaqan dhaqaale ee bulshada deegaanka lagu horumarinayo munaasabadan 26aad ee xuska 20ka Ginbood oo ka qabsoontay madasha kulamada ee kaaliya magaalada Jigjiga ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ugu sarreeya xukuumadda deegaanka oo ugu horeeya madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Umar madaxweyne ku-xigeenada golaha kaabineetka shaqaalaha xafiisyada heer deegaan mas'uuliyiinta gobolada iyo degmooyinka deegaanka bulshada ku nool maamulka magaalada Jigjiga odayaasha deegaanka iyo sidoo kale kooxaha fanka iyo suugaanta deegaankeena Soomaalida Itoobiya oo halkaas ugu soo bandhigayay suugaano ay ku cabirayaan faa'iidooyinka kala duwan ee ay leedahay munaasabadan 26aad ee xuska 20ka Ginbood waxaana sanadani halku dhig looga dhigay munaasabadan 26aad ee xuska 20ka Ginbood Itoobiya waa dal ku howlan dhismaha nidaamka federaaliga ah oo xoojinaya sinaanshaha iyo ka faa'iideysiga cadaaladda ku dhisan ee shucuubta haddaba xuskani sanad guuradii 26aad ee 20ka Ginbood oo ah maalintii dhidabada loo siibay xukuumadii kaliya taliskeeda ee dhargiga isla markaasina ay cururtay Itoobiyada cusub ee ku saleysan nidaamka federalismka oo ay si siman uga faa'iideysanayaan dhammaan qowmiyadaha iyo shucuubaha dalkeena Itoobiya oo hadda ka hor xuquuqahoodii ka laaray kaliya taliska dhargiga haddaba madaxweyne ku-xigeenka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ahna wasiirka xafiiska beeraha iyo horumarinta kheyraadka dabiiciga Marwo Sucaad Axmed Farax ayaa ugu horeyn munaasabadan 26aad ee xuska 20ka Ginbood furitaankiisa ku soo dhaweysay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Umar waxaanu madaxweyne Cabdi Maxamed Umar ugu horeyn u diray shacabweynaha dalkeena Itoobiya gaar ahaan shacabka deegaanka hambaliyada sanad guurada 26aad ee 20ka Ginbood maadaama ay tahay maalin mudan in la xuso sanad walba isla mar ahaantaasina uu waaga cusub u bariyay qowmiyadaha iyo shucuubaha dalkeena Itoobiya waa dal ku howlan dhismaha nidaamka federaaliga ah oo xaqiijinaya sinaanshaha iyo ka faa'iideysiga cadaaladda ku dhisan shucuubta qowmiyadaha dalkeena kala gedisan Ginbood haya oo 26 jirsatay waxaana ku soo hagaagtay Ramadaan ayay maxaa ku raala kowsatay taalafteedu waa guul kala leeyahay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Umar ayaa sidoo kale dib u milicsaday sooyaalka taariikhda ee deegaankeena Ginbood kadib dhinaca nabadgelyada isagoo xusay xaaladihii uu xilligaasi deegaanku ku sugnaa inay ahayd mid cakiran oo ahayd in la eego in xaaladda lagu sii jiro iyo in wax laga qabto sidii loogu babacdhigi lahaa in xal waara laga keeno nabadgelyada deegaanka kadibna ay xukuumaddu qaadatay sidii shacabka looga saari lahaa xaaladii nabadgelyo darre ee uu ku sugnaa shacabka deegaanka dhammaan guulaha horumarka nabadgelyada ee maanta la hantiyeyna ay furo u tahay 20ka Ginbood shalay deegaankeena sidoo waxa dilka iyo dhacaya kufsiga markuu batay kaliya in la eegto oo sida ay ahaato iyo in wax laga qabto labadan bay ahaydun wax kale u dhaxeeyay ma jirin laakiin inta la gaaro maxay u baahan tahay waxa u baahnayd in eed loo galo eed marka koobaad eed baa ka imanay hatta tiraana badiid baan waxa weeyaan la dagaalami ama nidaamkii jiray ee dad baa ku noolaa oo dadka ku noolaa markay ugu yartay dadka ku noolaa waa iska hor imanaysaa been iyo propaganda sameeyay way kula dagaalami marka ugu yartay horta dadkii ku noolaa waa iska hor imanaysaa dadka waxa weeyaan ka cabsanayana way kaaga carari oo eed ma rabaan qasku laakiin deegaanka uu qasnaa heer waxa la gaaray qof kasta inuu cabsado madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Umar ayaa carabaabay in hadda wixii ka dambeeya ay tahay sidii loo sii xoojin lahaa horumarka deegaanka iyadoo madaxweyne Cabdi Maxamed Umar uu xusay in 2 sano kadib uu deegaanku martigelin doono xuska 8aad ee foorumka toddobaadka magaalooyinka dalkeena Itoobiya sidaa darteedna loo baahan yahay sidii loo sii laabi lahaa kaabayaasha horumarineed ee laga fulinayo magaalada Jigjiga hadda wixii ka dambeeya xoogan saarayna horumarka waana sii laba jibaarayna waayo hadda waxaan shalay meeshan ka khaldanay maanta kama khaldanayna sanad ka dambaysa aqli iyo maskax baa ku soo kordhaysa shacabka waxa lagu kasban karaa garan karaysa maalinta ka dambaysa waxa ku soo kordhmay maskax iyo cilmi baa ku soo kordhaya hadii la yiraahdo 2 sano kadib Jigjiga waxa lagu qaban doonaa caasimadda deegaankeena maalmihii magaalooyinka lagu qabanaya inay u yimaadaan Jigjiga oo sidan ahayn hadii la yiraahdo 2 sano inay yimaadaan Jigjigadan oo 5 jeer liba jibaarana hadday noqoto dhanka nadaafadda iyo bilicda xagaasan xoog saarayna nadaafadda iyo bilicda waxa la xoog la saaray hadana magaalada Jigjiga oo xaafad kasta qasabada hor taagantay waa inay yimaadaan sidoo kale madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Umar ayaa sheegay guulaha 20ka Ginbood laga soo hoyay qayb mugle ka tahay la dagaalanka saboolnimada iyo xaqiijinta damaanadka cuntada iyo sidii looga qalin jabin lahaa gaajada loona gaari lahaa isku filnaansho iyadoo kor loo qaadayo wax soo saarka beeraha dhulkii ugu qaybsanaa waa haysanaa biyo nagu filan waa haysanaa roobna waa haysanaa
aqoontii iyo kartidii waysana Soomaalidana dad ka shaqo badan haday shaqo u dhaqaaqaan ma jirto wax la yaqaanaba marka hadii la yiraahdo cududeena iyo xoogeena iyo hantideena iyo waxa weeyaan intaan adeegsano hal qof oo deegaanka Soomaalida oo gaajoonay lama arkayo geestiisa waxaa munaasabadan 26aad ee xuska 20ka Ginbood ka hadlay mid kamid ah odayaasha waxgaradka ee deegaankeena oo ku hadlay magaca odayaasha deegaanka ayaa waxa uu xusay inay maalintani tahay maalin ahmiyad weyn u leh dhammaan qowmiyadaha iyo shucuubaha dalkeena Itoobiya gaar ahaan shacabka deegaankeena sida darteedna ay muhiim tahay dhibaatooyinkii inaga soo maray xukuumadii Kaligitaliskii dhargiga in maskaxda iyo maankaba lagu hayo 20ka Ginboodna ay sababtay inay yeeshaan qowmiyadaha iyo shucuubaha dalkeena Itoobiya dastuur ay ku midaysan yihiin kaasoo xaqiijinaya dhammaan xuquuqaha dastuuriga ah ee qowmiyadaha iyo shucuubaha dalkeena Itoobiya inay si siman uga faa'iideystaan Ginbood waa karaamadeenna Ginbood waa sharafteena Ginbood waa ta inoo suurto gelisay inay wiilasheena liibi boolisku dhashaan Ginbood maanta waxayna soo gaarsiisay inaynu hoolkan aad arkaysaan oo ka mid ah horumarka aynu ku faano maanta aynu ku qabanayno maxaa inala gudboon waxa inala gudboon inay mar kasta inoo calaamadsanaato taariikhdii aynu sanadkan samaynay gudihiisa ee ahayd maxay tii aynu cadowgeena ku quusinay dibad iyo gudaba aynu cadowgeena ku quusinay aynu sida cad u dhignay inaan Itoobiya maanta la burburin karin aynu sidii gacmaha isku haysano oo aanu taagnaano markasta inuu fikirkaasi nagu jiro intii ay socotay munaasabadan 26aad ee xuska 20ka Ginbood ayaa waxa lagu soo bandhigay film documentary ah oo ku turjumaya waxqabadkii xukuumadda ee dhinacyada nabadgelyada horumarka iyo xiriirka dadweynaha dal iyo dibadba ee laga qabtay 10kii sano ee la soo dhaafay hadaba gabagabadii munaasabadan 26aad ee xuska 20ka Ginbood ayaa waxaanu wareysi la yeelanay qaar kamid ah bulshada ka soo qayb gashay xuskan 20ka Ginbood oo tilmaamay inay aad ugu faraxsan yihiin munaasabadan 20ka Ginbood isla markaantaasina cadeeyay inay ku soo hagaagtay xuskan 20ka Ginbood xilli guulo horumarineed oo waaweyn laga hirgeliyay guud ahaan dalkeena Itoobiya khaasatan deegaankeena Soomaalida Itoobiya sidoo kale uu hambaliyay guud ahaan shacabweynaha dalkeena Itoobiya khaasatan deegaankeena Soomaalida Itoobiya muddo 26 sano ka hor taariikhdiisan ku haynay waxa weeye ma ka jirin dalkeena deegaankeena Soomaalida waxaan hadda ka jira maanta horumarkan iyo waxaan ka jiro iyo nabadgelyada iyo cadaaladda ka jirto kamaysan jirin annagu haddaan nahay salaadiinta deegaanka waxaanu ku faraxsanahay nidaamka maanta jiro waxaana taageeraynaa inuu nidaamkan uu sii socdo waxaan garbaha haynaynaa nidaamka dib u curashada iyo maamulka suuban ee xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida uu aabaha iyo hooyada labaduba u yahay gabagabadii munaasabadan 26aad ee xuska 20ka Ginbood ayaa waxa halkaas si wada jir uga shamacshaday madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar iyo madaxweyne ku-xigeenka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ana wasiirka xafiiska beeraha iyo horumarinta kheyraadka dabiiciga ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Marwo Sucaad Axmed Faarax